السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لا يكسر دوايا channelka Sketchware Somali. waxaan hore soo gelinay laba video hore. midna uu yahay sida calculator-ka loo sameynayo, ka kalena uu yahay sida loo soo dejisanayo Sketchware lafteeda. Marka waxaan rajeynayaa inaad soo dejisteen Sketchware. Haddaba maanta waxaan isku yardeynaa in basics-ka Sketchware aynu yara eegno. Marka waxaanu sameysan doonaa project cusub. project-ga markaan sameysano basics-ka waxaa kamid ah basics-ka waxaan jeedaa waxyaalaha hareeraha yaala sida loo isticmaalayo. linear-kaas kamid ah. linear-ka waxaa loo isticmaalayaa imika kale linear-ka iyo text view-ga ama qoraalka markaad wax isleedahay u dhaxaysay linear ayaa isticmaalaysaa si aad u dhigtid qoraalka meesha. linear baa isticmaalaysaa si aad qoraalka meesha u dhigtid. marka aduu waa iska gidaar weeji gidaarka jiifa saas baan iska niraahno. ka ku xigana waxa weeye gidaarka taagan weejiisna. scroll hastaa iyo scroll feeder inshallah labada horun bay leemid yihiin laakiin wax yar bay kaga duwan yihiin. waxay kaga duwan yihiin waxa weeye in waxa dhex dhigto labadooda hoosna loo riixi karo hareerahana loo riixi karo. marka waad tijaabin doontiin balse waxaan rajeynayaa inaan labadooda qulaatay video kasoo sameeyo inshallah. iyagana waan iska dhaafanaa. waxa ku xiga radio group ku xiga isna wuxuu sadarkiisa wuxuu eegyahay linear h ama ka u sareeyo. marka isna waa la mid tab layout-kan waxaa loo isticmaalaa sida WhatsApp-ka kale imika xaga calls status waxyaalahaas oo kale ayaa loo isticmaalaa. qofku halkan sare waa kan app-kan laftiisa aan ku dhex sameynaa uu leeyahay halkaas sare. marka tab layout-ku waa saas oo kale wadarkasiin isna markaa isaas ku dhaafanaa. bottom navigation-kuna waa xagga hoose tab layout-ku ayuu kasoo horjeedaa. app noocaas oo aragteen baan u maleynayaa YouTube oo kale kamid ah hoostiisa oo idinka xagga home subscriptions saas oo kale weeji. marka isna saas loo adeegsadaa. waxa ku xiga collapsing tool saan arkaysiin linear-ku u eegyahay isna collapsing tool-kaasi. waxa ku sii xiga card view saan arkaysiin isna wuxuu la mid yahay linear view linear h baan uga jeedaa. waxa ku sii xiga text input layout kaasina wuxuu la mid yahay linear h. adoo dhammaan kuwaas way shabahaan waxay ku kala duwan yihiin in yar. swipe refresh layout-kan ayaa isagu ka duwan. swipe refresh layout-kan swipe refresh layout isagu waa YouTube-ka kale marka hoos u soo riixdo wareegga yara soo baxay imika kale marka sidaa hoos soo jiida app-ka wareegga yara uu iswareejiyo weeji. marka refresh baa la dhahaa saas oo adeegsanaysaa kaana. waxa imika kuwii saxda u soo galnay qalabka text view waa kamid ah qoraal oo waxaad ku dhex qori kartaa qoraal aad uga baahantahay inaad dhex dhigto waa qoraal isagu waad arkaysiin ma u maleynayaa. waxa ku xiga edit tags waxa weeye qoraal qofka isticmaalaya app-ku uu hagaajinayo oo uu wax ku dhex qorayo. marka inshallah mid bal uga ama saddex mid aynu video uga sameyn doonaa. edit tags-kaas imika kale waxa weeye qof markuu number geli aad ku leedahay numberka uu geliyo saas oo kale weeye. auto complete tags-na wuxuu yar eegaya edit tags-ka. waxa kale oo isna la mid ah multi auto complete tags. saddexdaas aad arkaysiinba hoosta waxa uu linku ka yaala ee qoraalka khafiifka ah waa waxyaalaha uu soo aad rabto inuu soo geliyo qofka isticmaalaya app-ku. laakiin edit tags-ka ayaa caansan labadan kale badan kala ma isticmaalo. edit tags-kaas ayaa badan kala isticmaalaa. waxa ku sii xiga button oo isna app walba ku jira. button-ku sida garanaysiin waa button marka waa meel qofku uu taabanayo kadibna meel kale sii geynaysa.
marka sida arkaysiin buttonku waa buttonka aan taabtay haddii rabtiin aad soo dhex dhigto button ba soo dhex gelinaysaa waxa la mid ah material button ka buluuga waa isla buttonki image marka labadooda button laakiin ka badanka la isticmaalo waa ka ay button ku qorantay ayaa caana material button isagoo iska soo faracaya iska soo raacaya image view isna meesha yaala oo markaad app-kaaga soo gelinayso sawir waxa meesha sidoo kale yaala circle image view oo marka app-kaaga soo gelinayso sawir gooba ah waxa ku sii xiga checkbox waa check oo gelinaysin sax markuu isticmaalayo user-ka ama qofkan app isticmaalaya haddii rabtid meel yar inuu sax iyo khalad inuu kala doorto checkbox baa loo yaqaanaa checkbox bay soo gelinaysaa waxa kale oo la mid ah radio button iyo checkbox bas oo arkaysiin si isku shabahan midna waa afar-gees marka kolba kii aad rabtay inaad app soo dhex geliso ma oo baad ka dhigaysaa mise afar-gees qofka ay ku xiranta switch-ka noo gelinaysiin imika kale tusaale ahaan switch-ka waxa oo tusaale marka app-ka notification-ka iska xidh ama isku fur marka adiga on ka dhiga ama off ka dhiga marka app-kaaga wax noocaas ah soo gelinayso waa soo dhex gelin kartaa waxa soo raacaya seeker-kan waxa weeye sida halka ka arkaysiin waa lead yar iyo dhibic Soomaali waxa weeye ma kala app-ka quraanka markaad dhageysanaysid lead-ka yar sida isku wada ama marka WhatsApp-ka dhageysanaysid codka lead-ka yar sida isku wada weeye ala seeker waxa ku xiga progress bar kaasi waa macnihiisa marka soo koobo loading page oo halka sare la dhiga badanka rating bar kaasi waa apps-ka kale marka isticmaalaysan waa kuwa Play Store-ka kuwa ku in kula no read kare app-ka waa soo dhex dhigi kartaa doobanta app-kaaga waxa ku sii xiga search view ku sii xiga oo gelinaysin si fiican hadda app-kaaga soo gelinayso meel wax laga baarayo search view soo dhex gelinaysa sida YouTube-ka Play Store-ka saasoo kale search view la yiraahdo video view waa app-kaaga marka rabtid inaad video uu qofku ka dhex furo waxa ku sii xiga web view-gan waxa weeye xaga web view dhexda ku qoran waxa weeye marka app-kaaga aad ka dhigaysid mid furaya ama qofka dhex geynaya website isagoo app-kaaga ku dhex jira ma sharixi doonaa mid walba insha Allah fiidiyoda dambe list view-na waxa weeye marka app-kaaga list soo gelinaysid saymka quraanka app-ka quraanka ka soo hadalnay listiga ama liiska suuradaha oo ku jira marka waxa kale oo la mid ah listiga WhatsApp-ka liiska dadka kugu jira saasoo kale markaad app rabtiin isticmaasho grid view-na waa listigii oo la istaba dhigay kana isla soo dhigay waxaan ku masii kala duwana waxa la mid ah recycle view-na listigu yar ee arkaysiin badan kala ma isticmaalo spinner-kaasina waxa weeye app-kaaga spinner waxa weeye bahasha saddexda dhibcood imka app-kan kala halkaas taala saddexda dhibcood geeska yaala weeye ay spinner loo yaqaana ma soo gelin kartaa app-kaaga view pager-kan waxa weeye imka kale view pager-kii waxa is qabanaya tan soo dhaafnay tab layout-kii soo gelisay view pager-ka kama maarmayo waa markuu qofku sida uu rogo view pager-ka ku caawinayo inuu qofku sida uu rogo marka oo fahanteen ma marinay view pager-ka isna waan ka sheekeyn doonaa page view website bar kaas waa contacts-ka kale ABCD doota aad b taabato dadka b-da ka kacay kugu jiray saasoo kale weeye button lock view note garanaysaa oo password-ka apps-ka password-ka xasaa loo isticmaalaa code view isna waa qoraalka arkaysiin sidii wax code oo kale waxa soo raacay inta load animation-kaasina waxa weeye imka kale halkan app-kan isticmaalayo inta hoose buluuga ay ugu yar sareyso hoostana si loo riixayo marka soo taabto animation buu ku digay marka soo taabto hoos buu digay
hoos u degista yar waxa sameeyo loo tiya animation يعني animation buu ku sameeyaa sawir yar si wax hoos dhigay kor u baxaya hareeraha saas kale weji OTB view-gaasina saarkiisimba waa 4 line marka isna waxyaalo gaar ah loo adeegsadaa OTB view-ga add view-gan soo xaweeji add-iska waxa loo yaqaanaa imika ma soo dhex gelin karo wuxuu igu leeyahay waana sameystaa add view account waana sameystaa igu leeyahay ma view-ga la midisna ma soo dhex gelin karo ilaa aan soo sameysto sign in button kaasina isna qof marka apps-ka qaar baad aragteen koorneen Google ku xiriirso isna saas oo kale app-kaagana soo dhex dhigi kartaa inkastoo xogaa hawleeyay leeyahay balse add view iyo ma view iyo waxa weeye kaasi add isku soo dhex geliya app-ka ama fiidiyoyada yar dadka iska soo dhex gala ma view-guna dawad ganacsiin wuxuu dadka tusayaa location-kii waxa YouTube player kuna waa markuu qofka aad u soo dhex dhigaso fiidiyo YouTube-ka yaala YouTube-ka iyo Google-ka waxa soo raacay xagga yar hoose date and time marka waxaan waa category dib aynu soo yar noqon doonaa analog clock waa marka halkan waa dhankii saacadaha iyo time-ka waxa gore analog clock digital clock oo saacad yareeyda numberka caadiga time beaker oo mid weyn oo macala saacad yes wada wata date beaker oo isna date-ka sheegaya meeshan wada deeqayn date beaker kuna oo kaasina date-ka hadad maanta qofku wax date la xiriira app-kaaga aad isticmaalaysaa waxa calendar view kana calendar-ku ku tusaya marka isku soo duuduubo mid baynu insha Allah video-ga sameyn doonaa ama 3 maalin beenteena wadno category-da hadan kusoo noqdo koo hore waa layouts ama gidaarada aynu ku macnaysanay waayo waxaan waa gidaar buu eegay wax kale aan ku macnayo ma garanayo marka category waa layouts Android X widgets ayaa ku sii xiga waxa ku sii xiga listiyadan oo inagii aragnay ku istabeeyay ku soo siyaala spinner-ka halkaas sare waxa ku sii xiga library waxa ku sii xiga Google wixii Google-ka looga baahnaa oo intaas waa Google date and time ka dambeeyay marka waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha Allah channel-ka subscribe garee video-ga dambana insha Allah si aad ula socotid gambareerka yar furo waxaan kaga tagayaa salaanta islaamka